Columbus waxaa lagu qabtay isku aadka kooxaha ka qaybgalaya ciyaaraha xagaaga ee sanad walba lagu qabto gobolka Ohio. Sanadkan 2026 16 kooxood ayaa mar kale ka qaybgali doona tartankan adag ee dhex mari doona dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala imanaya gobolada Mareykanka, Canada iyo weliba qaybo ka mid ah wadamada Yurub. Kooxahan waxa ay isugu jiraan dhalinyarada dhexdhexaadka, kuwa yaryar iyo weliba kuwa cuslaaday. Columbus Indoor Soccer Cup waxaa la qabanayaa sanadkii 21aad oo xiriir ah. Maamulka ciyaarahan ayaa sheegay in hadafkoodu uu yahay dhiirigelinta iyo kobcinta garaadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. Muddadii ay socdeen ciyaarahani waxaa ka soo baxay jiilal u saftay kooxo heer caalami ah oo ilaa haatan u ciyaara heer gobol iyo weliba heer qaran. Sanad walba waxaa abaalmarin la guddoonsiiyaa ciyaartoyda kaalimaha fiican soo gala iyo kooxahooda. Waxaa kale oo abaalmarin la siiyaa haldoorka bulshada ee isgarabtaaga u muujiyay barnaamijkani muddadii uu soo socday. Barnaamijkan ayaa muddada uu socdo laga dareemaa gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus oo dhalinyaro badani ay galaan suuqyada ayaga oo ka dukaamaysanaya, maqaaxiyaha ka cunteynaya, isla markaana sameynaya isdhexgal bulsho. Waana barnaamijka ugu weyn ee gobolka Ohio uu sanad walba tabo. Barnaamijkaasi waa mid muhiim u ah bulshada ayadoo dhalinyaraduna ay sameeyaan wada sheekaysi, kulamo iyo weliba ayada oo loo sameeyo barnaamij aad u ballaaran oo casho sharaf ah oo ay ka soo qayb galaan jaaliyada iyo weliba martida gobolkan imaaday. qorituurka ama isku aadka Columbus Indoor Soccer Cup oo loo maaragtay baaraandagayo sida iskugu aadi lahaayeen kooxaha insha Allah oo dhici doona bisha afraad ama April 2 ilaa 5. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu si nabad iskugu kengeeyo. waa sanadkii 21aad ee la iskugu yimaado magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Shalay ayay ahayd markay bilaabanaysay, maantay cunugii markaas dhashay waa 21 jir. waxaan ka cudur daaranaynaa daahida iyo maaragtay waqtiga meeshaan aad soo geliseen oo xogaa maaragtay run ahaantii gadaal laga yimid. waxaan rajaynayaa insha Allah isku imaadkeena dambe inaan saa ka fiicnaan doono. waa boogsiin doonaa marka maadaama meesha lagu jactaday dhalinyaro badana ay geemam leeyihiin insha Allah. waxaan ka bilaabaynaa biidnillahi alkariim maadaama waqti badan aan haynin sideena u gudagalaynaa awards yar ama maaragtay guddoonsiin loogu talagalay in maaragtay run ahaantii lagu garto dad iyo maaragtay meelo qeyb weyn ka qaatay mujtamaca ama communityga Soomaaliyeed ee meeshan ku dhaqan. insha Allah biidnillahi alkariim waxaan halkan aan rabaa oo sanadkan aan bilaabi doonaa, sanad walbana uu dhici doono, inkastoo insha Allah aan gudbi doono xoogaa voting system aan samayn doono, inaan siino 2 ciyaartooy sanadkan oo aan ugu wacnay Rising Star Awards, kuwaas oo run ahaantii sanadkii hadda ugu dambeeyey qeyb lixaad leh ka qaatay improvementigooda iyo maaragtay run ahaantii ciyaartooy ahaantooda. waxaan insha Allah aan ka cudur daaranayaa ciyaartooyga ugu horeeyo oo aan rabay inaan u waco in uu meesha ka tegay isagoo cabaar joogay xoogaa dara gaarana u tegay. ciyaartooyga ugu horeeyo oo sanadkan aadka u fiicnaa oo dhinaca ka imaanayay westiga una ciyaarayaan Africans ay duruus khamiis insha Allah biidnillah Young Stars ayaan insha Allah biidnillah alkariim ka yimid. waxaana u qaadi doona coachkeena Saciid oo halkan isaga jooga. asagana waxaa jira ciyaartooy kaleeto oo dhinaca nooradka ka imaaday oo run ahaantii asagana qeyb aada u wanaagsan ka qaatay hordhisida iyo maaragtay kooxdiisa ka qayb qaadashada guulaha kooxdiisa. waxaan markaana u wacayaa ciyaartooyga ka timid ciyaartooygeena Cabdifatax Muuse oo ka imaaday Ohio United, isagana Northside-ka ah. waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo halkan, waxaan rabaa isagana inaan kusoo dhaweeyo ciyaartooy hore oo laacib ahaa oo laakiin qoomkiisii ay ahaayeen qoomkii dinosaurka saaxiibkay walaalkay eega inuu guddoonsiiyo.
soo istaago ninkan ilaa hadda waxaa waaye dada aaminsan wuxuu ahaan jiray inay maaragtay magaalooyin dhan u barnayd aad ayaan ugu faraxsanahay. waxaa ila soo dhaweysaan tiimka ugu wanaagsanaa over 35ka ugu finalada badnaa ugu koobabka badnaa ugu akhlaaqda badnaa kooxda suufiyada soo dhawaada. kooxda suufiyada hal heerar ay leedahay. cawaali maxamuud u qaadi doona fiiri kooxda suufiyada hal nin aanan weligiis taageerin. waxaan rabaa ninkaas inuu guddoonsiiyo maanta koobkan. cabdikariiso istaag marka. cabdikariiso istaag. kooxda weligiis mucaarada ku ahaa horka. ma u malaynayo annaga inaan u qalanno award. I think dhalinyarada iyo Bashir for the last 21, 22, 23 years uu dad isu keenaya abaalmarin dhiibaya recognize garaynaya bulshadana abaabulaya caruurteenana meel ay ku ciyaaraan u suubinaya. I really think anybody deserving an award hadduu jiro Bashir waayo. Bashir, thank you very much. Jazakallahu khairan all the wanaag aad bulshada u qabatid. odayaasha kale halkan fadhiya aan isku facannahay ama aan ka yarahay, thank you very much akhwa. This is very remarkable. dhalinyarada gadaal fadhiya maaragtay Cabdifataax iyo Cabdifataax that abaalmarin inaad keentid waa next time we're going to compete aniga adiga. A lot of people don't know aniga Cabdifataax inaan the same team aan iskula jirno. Coach Maliko waa coachka Ohio ugu xifrada badan oo ilmo badan soo caan bixiyay, laakiin anaga banaanka ma taagnin, waxaan taaganahay behind the scene and mar walbana waxaan u taaganahay ilmaha yararka. marka haddaan ka hadlo clubka aniga aan u ahay directorka waxaa la aasaasay 2013 ilaa hadda waxaan ku taaganahay supportka dadkeena community-ga oo kaliya ah. waxaana ka soo baxay arday badan oo meeshan joogto, qaarkood hadda aan isku diyaarinay inay coaches noqdaan ama ay tooshka meesha annaga aan geynay ka sii qaataan. sida ninka dhalinyarada Where's Kante awe. Kante is doing wonderful. Schoolkiisu soo dhamaystay intuu Burundi soo dhooli jiray, haddana wuxuu soo galay jidkii annaga aan ku jirnay oo farxadna gelinayso in qof kale oo jidkii soo maray inuu ilmihii naga dambeeyo uu daadiheeyo. qaarna ay isfahmayaan mataqaanaa weli ay dhalinyaro u yahay. marka Maliko waxaan isbaranay 2002 waa dheelina labadeena. marka Malikona isagana waxaa waaye badanaa dadka kubaddan waqtiga geliyo oo aan isku baran dhinaca coachinka, dhinaca ciyaartooyda. marka isagana waxaan dhihi lahaa inuu dhowr xabo hadal uu ka dhaho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just want to give a big shout out for our brother Bashir. I mean, I know what it takes to organize, bring communities together, and he's doing a wonderful job. And I just want to give you a big shout out for your crew and you as yourself, just bring the crews together. So, Alhamdulillah Rabbil Alameen, we're doing a great job raising the kids. So, the more we bring us together, and the better we get, inshallah. So, let's keep doing what we're doing. Okay, and waxaan rabay inaan ka hadlo Bashir waa hilmaamay Cabdirasaaq cajal uu soo laqay maanta wuxuu ka sheekeynaa anaga hadalkii waaba naga tegay. waxaan rabaa inaan idin sheego sanadkan waxaan daadaheyn doonaa ilmaha yaryarka ah. Bashir groupkiisa aad ugu mahadsantiin inaan nagu aamintaan inaan dhinaca ilmaha ka shaqeyno. sanad ka dambeeyo meeshaan aan taaganahay haddaa ku laabataan cajaladaha. goolkeyga waxaa waaye in ilmaha 9 jirka 7 jirka 8 jirka in meeshaan ay ka muuqdaan, oo hadda raggan waaweyn u jeedaan ma taabanayna ha socdaan. raggan waa dad wax loo baahan yahay, laakiin waxaan goolkeena ah oo aan ku tala jirnaa in ilmaha yararka 3 division 4 division sanadkan waxaan la hadalnay 8 coach oo magaalooyinka United States kala degan oo noo imaan doona 4 team magaalada noqon doonaan. ilkaasi yararku wata Saciid, coach Saciid, coach Malik. marka dhinaca xooga aan saari doon dhinacaas ay noqon doontaa. marka Bashir groupkiisa wax badan aan isjijiidaynay. finally I think inay give up gareyn arkeen waxaan suubin karno iyo awoodeena. marka dhinaca ilmaha ah annagaa la wareegnay wixii caawa ka bilowdo
maalik dhinacaygu taagan yahay iyo koojajka kale oo yaryar kaantay oo kale kulligin haddii aan isgarab istaagno wax badan qaban karnaa marka ilaah hadduu yidhaahdo yararka U13 aan ku bilaabeynaa sanadkan next yearna kuwa yarariisko xataa 5-year-oldka 6-year-oldka we want inay meesha ka muuqdaan ilaah hadduu yidhaahdo so thank you aad aa mahadsantiin bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaa halkan noogu soo gabagaboway ciyaarihii tournamentiga xagaaga la qaban jiray qorturkeeda sanadkii 21aad ayaa si wanaagsan soo dhacay waa ilaahay mahadiis hortaro waxaa mahadda kuwaad iska leh waa ilaahaygii noo samray in halkaan isugu maano iyo dhallinyaradii juhdiga geliyey si rag badan oo saaxiibada gudoomiye Bashiir Geele ugu horeeyo iyo tiimkiisa waxaan rajeynaynaa sanadada soo socdo sida ay si ka wanaagsan sanadkan waxaan ku soo kordhinay oo hore aan u jirin caruurta da'da yar under 17 under 9 8 10 iyo wax la mid ah ayagana aan ku soo kordhinay odayaashii 40 abna waa jiraa da'da yaradna waa jirta saddex qaybood weeye tournamentiga marka hore laba qayb ayaan jirtay qayb saddexaad ayaan ku soo darnay insha Allah taala waxaan rajeynaynaa sanadada ka socdana inaan wax ku soo darno mooyaane inaan sidaas ugu dhicin qof walba ka soo qayb galma u baxcelinayna insha Allah ma hada noo soo gabagabeeyay insha Allah ilaahay khayran uu gaarsiiyo waxaan rajeynaynaa inaan si caafimaad leh u dhameeyno anigoo ku hadlaa magaca guddiga sportiga sida wanaagga u rabno noogu dhacay tiimkii dhan sidoo kale isku aadiyey marka waa mahadsantiin everybody oo ka soo qayb galay guddigaba bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa coach Saciid insha Allah from Ohio sanadkan waxaan la jiraa teamka youngsters marka we expecting to have a great tournament insha Allah kooxaha dhan ay ku soo socdaan magaalada waan u dhaweynaynaa waa la soo dhaweynaa magaalada waa magaaladiina insha Allah marka let's have a great tournament waxaan rajeynaa kooxdeeda insha Allah sanadkan inay hal talaabo kale ay qaado koobka ay qaado sanadka la soo dhaafay finalkan ku harne nasiib xumo laakiin insha Allah sanadkan waxaan rajeynaynaa inaan reeyno insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacayga waa Malik. I normally have with the youth. I deal with a lot of youth. I also coach the high schoolers. I also coach the big guys too as well. But for our community, I want the young youth to be seen. I know they have a potential, but my goal is to give them in an environment where they can be successful. And I know the old guys already they're out, but the young one, if we can hold them their hand and have them bath for them, it will be great for me. So, thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Qadar from Hilal. I'm currently the captain of Hilal FC. We are very glad to be back to the tournament. We missed it last year due to some personal issues. We won the tournament during 2015 and 16, back-to-back champions. There are only two teams that actually won it back-to-back is FC Hilal and Halgan, I believe. So we're very glad to be back with the tournament, and we're willing to win it third time, inshallah. Assalamu alaikum. Waa coachilka case oo teamka Somali SYS kuwa yaryar oo under 13ka iyo kuwa waaweynka oo 20ga oo spring break dheelaaye waqti badan aan ku soo jirnay coachnimada special kuwa yararka oo 13 jirada oo iyo kuwa ka waaweyn oo 14ka iyo 15 haddana kuwa waaweyn oo 20 jirada aan koobka ku soo daray SYS waxaa iga maqan coachka kale coach Samatar yani yaa wada train gareyn jirnay sanadkan insha Allah waxaan rabnaa inaan guulo ka gaarno kuwa yararka iyo kuwa waaweynka Assalaamu calaykum bacda salaan waxa aad ugu faraxsanahay ka soo qayb galka sanad guuradii 21aad ama diyaar garowgii koobka soccer tournament insha Allah waxaan rajeynaynaa intaan in ka badan iyo guulo badan inaan u rajeyno assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta waxaan joognaa qoritoorka koobka Siskab Columbus Soccer Indoor Cup oo dhaca xaga kasta magaalada Columbus gobolka Ohio maanta aan qabanay qoritoorkii si isugu aadeen tiimada ka imaanayay goboladan kala duwan maanta noo hagaagay marka maanta waxaan leenahay ka soo qayb gala wuxuu dhacayaa April 2 ilaa 5 socon doona waa koobka ugu fac weyn magaalada Columbus waana koob runtii dhalinta Soomaaliyeed runtii ay ku soo baraareen marka dhammaan dadku nool mataqaana magaalada Columbus nawaaxigeeda iyo kuwa ku nool gobolada kala duwan Mareykanka iyo kuwa ku nool dunida caalamka waxaan leenahay ku soo dhawaada sida toos nagula socda
TV-ga mataqaanaa Soomaaliya waxay TV-ga Sona Pro kaasoo marka soo daadahiyay ciyaarahan xagaaga iyo waxaan le dhammaan waxaan mahadcelinayaa qabanqaabiyaashii iyo dadkii kasoo qayb galay xafladda quruxda badan وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaa maanta ilaahay xamdigiisa inaan iskugu nimid magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee jaamacadda weyn ee Ohio State taasoo lagu dhigayay qorituurkii ama isku aadkii kooxaha Columbus Indoor Soccer Cup 2026 ee dhici doona bisha afraad ama April labadeeda ilaa shanteeda waxaa ilaahay mahadiisa mar kaleeto inaan sugayno inay meeshaan ugu yimaadaan dad aad u tiro badan walaalaheena aan u xiisnay oo sanad ka hor iskugu keen dambeysay waxaa ilaahay xamdigiisa in dhalinyaradii Soomaaliyeed ee meeshaan deganayd ay aad u xiisaynayso inay kasoo qayb gasho ama maaragtay tartanka ka qayb ka noqdaan sidaan soo nahay 6 kooxood oo ka mid ah kooxaha Columbus ee sanadkan ka qayb gali doona run ahaantii waa record aan markii ugu horreysay I think 6 kooxood ay ka qayb galayso magaaladan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee banaankana soo dhaweyno waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in si nabadan ugu gaarsiiyo si nabadan noogu dhameeyo qurux badan Ohio TV waxaan leeyahay sidoo kale aad ayaad u mahadsantihiin haddii jeer sidaad ugu qayb qaadataan isku xirka Columbus Indoor Soccer Cup ama koobka lagu dhigo sanadlaha ee lagu dhigo magaalada Columbus ee gobolka Ohio 11 sano ugu dambeysay iyo mujtamaca kale adduunyada dhinaceeda joogta deeqi iyo tiimkeeda thank you Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأحمد waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo isku aadinta kooxaha ama qorituurka oo ciyaarihii dhici jiray sanadlaha ahaa oo dhici jiray sanad walba springka ciyaarihii waa la isku aadiyay kooxihii la isku aadiyay hadeertaana way noo soo dhamaatay isku aadinta kooxaha sanad walba waxaan sidoo kale halkaan ugu mahadcelinayaa dhammaan kooxihii iyo coacheskii ka soo qayb galay qorituurka waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa walaalkeena Bashiir Geele oo ciyaarahan isku soo dabarida sanad walba oo sanadkan ay tahay sanadkii 21aad oo marnaba uusan ka daaleynin gaar ahaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Ohio TV walaashana deeqo ilaahay kharaas iyo aad baan ugu faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa dhammaan miidiyada noo timid deeqasoona waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan dhalinyarada kasoo qayb gashay qorituurka 2021aad oo ah CSCAP-ka waxaan aad uga mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qayb gashay soo imaatankii dadkii soo abaabulay dhammaan iyo kooxaha kasoo qayb galay oo nasiibka u yeeshay inay kasoo qayb galaan 2026 tournamentiga insha Allahu tacaala so waxaan leeyahay dhammaan soo dhawaada dadka ka imaanaya isteedyada kale waxaan kaloo soo dhawaada leeyahay kuwa jooga oo u yeeshay nasiib inay kasoo qayb galaan tournamentiga Ohio insha Allahu tacaala waana mahadsantiin